agaasimaha waaxda dambi baarista ee dalkani ee DCI-da George Kinoti ayaa sheegay in la bilaabay baaritaano ku aadan halka uu ku sugan yahay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed sidoo kalena falanqeeyay arrimaha Geeska Afrika oo maalmo ka hor laga afduubtay bartamaha caasimadda dalkani Kenya ee Nairobi. Mr. Kinoti oo maanta xarunta dhexe ee waaxdan ku qaabilay madax ka socota golaha sare ee muslimiinta dalkani ee SUPKEM ayaa waxa ay u gudbiyeen walaacooda ku aadan kiiska afduubka ee sii kordhaya. waxa uu agaasimaha waaxda DCI-da ballan qaaday in la galay baaritaano lagu xaqiijinayo halka uu ku sugan yahay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo maalmo ka hor la waayay. waxa uu sheegay in baaritaanadooda ay ka bilaabeen goobtii laga afduubtay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ku taala wadada Tarbam ee bartamaha Nairobi isla markaana ay gaari u qafaasheen 4 qof oo dharcad ah. golaha sare ee muslimiinta dalka ee SUPKEM iyo kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ka codsadeen agaasimaha waaxda DCI-da George Kinoti in uu diiradda saaro falalka afduubka isla markaana ay gacanta ku soo dhigaan kuwa arrinkani ka dambeeya. qoyska Cabdiwahaab ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin maqnaashiyaha aqoonyahanka. Mr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa ah aqoonyahan cilmi durugsan u leh arrimaha gobolka Geeska Afrika. waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa qaar ka mid ah machadyada cilmi baarista ee ka dhisan Geeska Afrika isagoo sidoo kalena ahaa bare jaamacadeed waxna ka qori jiray mid ka mid ah warbaahinada dalka. waxa uu sidoo kale ahaa falanqeeye ka faalooda arrimaha Soomaaliya isagoona la sheegay in taageero weyn uu yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.